shacabku waa quruxda dalka dadkuna waa kuwa qurxiya dhulkeena cadaaladdu waa tiirka dawladnimo balse markaad degan tahay barwaaqo oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiliwa cabashadu aad bay u sarreysaa sababtuna waxay tahay boob baahsan ayaa lagu hayaa dhulka ay degan yihiin dadkaasi iyadoo dhowr jeer si sharci darro ah looga dumiyo dhulkooda bal shacabka degan xaafadaasi ha inoo sharaxaan sida wax u jiraan iyo dhibaatada ay ka tabanayaan maamulka gobolka Banaadir ninka dacwoonaya in Xuseen Weyne ah waxa horkacay waxa waaye waa xildhibaanada soo mar walba ugu hanjabay dadka ay dhahayo waxaan ahnay anaga xildhibaano ninkan adika dhacay waxa ku dhacdeen magac hawiye meeshaan Soomaaliyeed ayaa u dhan ninkaas waxaa kamid ah xildhibaanada maalin walba daba socdo ay aan mar walba gobolka ku aragno mar walba guddi khilaafaadka aan ku aragno nin lagu magacaabo Bashiir Diiriye oo mar u tartamay madaxweyne ku xigeenka Galmudug ninkaas oo mar walba afkiisa waxa aan hadda inta ka sheegi karno mar walba ka sheegayo dadku u handaday maalin walba dhahayo ninkan xoogad ku haysataan ninkan nin dukumiinti sharci haysta ma aha waxaan soo gudbinaynaa cabasho weyn oo dib weyn oo na gaaray waxaan ka cabanaynaa in aan degannahay dhulkaas oo yahay dhul sharciya oo la cabiray 88 dhulkaas oo uu nagu haysto nin la yiraahdo Faarax Xuseen Weyne ninkaas oo garab ka helaya dhul bixinta nimanka khilaafaadka iyo gobolka Banaadir gacan ka helaya hadda koor dhulkeena waana la ka dumiyay ayadoo loo soo maray si tuuga iyo si qaab daran markii aan soo dacwoonay oo aan madaxdii dalka u dacwoonay oo arrinteeni la arkay waxaana la ku yiri dhulkiina idinka iskale waana loo xukumay guddigii khilaafaadka ee xilliga jiray ayaa noo xukumay dhulkeeni baan dib u dhisanay muddan deganayn mar labaad buu soo rogaal celiyay ninkan in Xuseen Weyne waxaan cabashadaas ka cabanaynaa waa maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga khilaafaadka oo gacan siinaya nin boobaya dad dhul ay degan yihiin oo sharciya waxaan cabashadana u gudbinaynaa madaxda dalka ugu sarreysa sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga gudaha wasiirka amniga taliyaha booliska maxkamadda sare ninka haysta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo nin kasta oo wax garada waxaan nahay dad Soomaaliya masaakiina dan yar ah nala ku khasbay dhibaatadan inaan ka hadalno nalo guriyihii iyo meeshii aan deganayna nala kugu yimid dhibaato loo geysanayo dhulkoodii la boobayo la rabo in dhulkoodii laga taajiro oo laga lacagaysto oo aan ku noolnahay muddo ilaa iyo 87 ilaa iyo hadda oo aan u haysano warqada oo mataqaana dokumenti oo cadiin ah oo siyaad barre ka soo baxday gooflihii ka soo baxday asiga ay mataqaana waafaqsan yihiin taasoo hadda sharci daro nidaam xumo lagu sameeyay iyadoo nidaam xumadan kow ay ahayn oo mar kastaba inta la soo qaado oo ninkan laga xukminayo ayaa hadda waxaa nasiib dara ah hadeer aan dhehayni cadaaladii mataqaana la taabana dawladii aad dhisantay waxbaa la qabanaa ninkii dulmooni ninkii kala la kala qabanaa oo aan dhehayni in haddana hoos mataqaana nolol dhigo oo dokumentiyalkeena la aruursado oo mar labaadna laga qaado oo nalagu soo cadeeyay in dimis aan nahay nalagu soo cadeeyo taasi nasiib xumo ah in inta ka hor muungaab uu dumiyay uu qalad ku galay magdhowgiisana laga rabay uu fakaday haddana in haddii iyada ahayd in la tiraaco go'aankii anaga nala siiyay in caw walbaba nalagu hanjimaado waan la duminaa nala yiraaho oo garab loo soo siiyay taas aad baan aaga xunna haddii dadweynaha oo degan baaxadda dhulka 150 oo 250 oo mataqaana dhir iyo balac usu ah dadweynaha degan oo rayidka ah oo agooman ku nool yihiin agroobo ku nool yihiin wilaawooyin ku nool yihiin dad maskiin ku nool yihiin oo dhisan ninka hadda damcay oo hor u dudumiyay in hadda dib loo soo dumiyo taasi waxa waaye ilaahan u sheegnay madaxda hadii gacan gaar ay leedahayna ayaga mataqaana mas'uulka ah inay mataqaana ka qabtaan waxaan wax walba aan mataqaana dokumenti cadeen aan u haysanaa oo hadda dawladda mataqaana arkiibideeda ay jirto hadii ay noqoleed gobol hadii ay noqoleed degmo hadii ay noqoleed guddiga khilaafaadka hadii ay noqoleed meel walba aan saan u hayno oo anaga mar walba soo cadeeyna la dhahay cumar tugum oo laba jeer nala diray oo labadii jeerna mataqaana guusheeda aan ka geersiina oo waxbana
hadda iyadoo jawaabna la siinin oo markasta markaan xafiiska tagna nala dhahayo arrintiina waa hagaagaysaa baxas ka baxa ayaa hadda nala soo dul istaagay dumis ayaa tihiin taasi aad baan aga xunnahay ummadaha islaamka meel kastoo joogaan khaasatan waa ku soo celinaa maxamed madaxweynaha farmaajo ra'iisul wasaaraha cali khayre qodobadiina ugu horey waxaa caadilad mataqaana aan kuwa maamulayna waddanka atirin caadilnimadii hadday taagan tahay nin walba cabanayo wuxuu idinka tabanaa in caadilkii loo fuliyo waxaan nagula haystaa xaafadeena aan deganahay oo meeshaas ku taala dhulka nagula haystaa cadadkiisa wuxuu dhan yahay 250 lagu dhufta 150 dhulkaas waxaan ku deganahay si sharciya dukumiinti aan u haysanaa warqadihiina loo diray oo cumar Kudube waa kanaha oo dukumiintigeena ku lifaaqan waxaana la yiraahday dukumiintigeena wuxuu yaalaa degmada gobolka wuxuu yaalaa guddiga khilaafaadka dacwadii markaan meesha u tagnay waxaa la yiraahday dhulkiina waxaa lagu sameeynayaa dib u eegis waxaana loo soo diray waxaan idin soo diraynaa dhahan guddi gudoomiye daacad wuxuu yiraahday waxaan idin soo diraynaa guddi dhulkiina ka warbixiyo oo imaada guddiga anagoo sugaynana waxaan nagula wargeliyay warqad nagula jabinay inay taalo degmada Hiliwaay waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha sharafta leh Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre gudoomiyaha gobolka injineer Yariso waxaan rabnaa dhulkeena in dib u eegis lagu sameeyo sharciyan ku deganahay si sharci ah ayaan ku deganahay waxaan rabnaa boobka nagula hay in nagala dhaafo 125 qoysana dhulka anagu ma sameeysan beera nooma ahayn qof nooma ahayn waa aan gadanay lacagteena ku deganahay dukumiintiga wuxuu ka soo baxay dawladda hoose 87 xukunkii markuu siyaad barra haystay canshuurtii aan ugu dhagan waxaan nagula amray anoon awood u lahayn waxa la yiri soo ku soo xiro warqadaada Cumar Tugumbe waa ku soo xiro waa taasaha haddana waxa la ii sheegay wargelin waxay warqadii jabiskeena intaan marka waxaan rabnaa boobka idhacan nagula hay in nagala dhaafo dhulkeena anaga iskale waa 120 iyo shambos shaqsi ma yeelan kara anaguna ma weyn karno marka waxaan rabnaa si sharci ah dhulkeena in nagula soo celiyo boobka nagula hay idhacan nagala dhaafo anaga iskale dhulkeena waa bilaa tawfiiq hadda kor waxaa dhacday 2014kii annagoo waxba kala ogeyn in xaafadda nagu yimaadeen ciidankaasoo saraakiil gaashaanlayaal dabley alifley cid kasta leh ayagoo u socda inay dumiyaan dhulka kan maadaama aan is aragnay waa is qaabilnay waxaan idhi dhulka maxaa ku duminaysaan waxay yidheen waana la soo amray muugabaan la soo amray waxaan tusiyey waraaqahaygii waxaan tusiyey fiyaanooyinka ay leeyahay dhulka jididaha uu leeyahay inuusan ahayn dhul habsasho ah uu yahay dhul cabir ah jidkiisana uu yahay 15 dinta u degato sidaas caawadeed dadkii saraakiisha ahaa way iga aqbaleen wayna iga garaawsadeen inuu dhulkan sax yahay maadaama aan tusiyey waraaqii waxay yiraahdeen 3 bilood oo fasax ayaa leedihiin markay naga tageen ee laamiga tageen muugab ayaa u soo hanjabay oo ku yiri dib uu noqdo dhulkaas ninka ka soo noqdo ciidana madaxa ka tooganaya sidaas cala aawadeed dhulkii maalintii waa la burburiyay ilaa dhowr iyo 10 boos laga burburiyay intaas kadib arbacay ahayd habeen khamiistaad waxaan ku waabariisanay wasiirka amniga gurigiisa wixii jarmalka u sheegnay wuxuu amar siiyay wasiirka arrimaha gudaha iyo ciidanka booliska inaana la tayin karin dhulkaas maadaama dadkan ay haastaan sharci annaga waxaa wadanaa suburloogo iyo rashabuur originaala ah oo 87 soo baxday 89kii cashuurteeduna way ku xiran tahay hadda adaa waa idin tusi karaa waa taa meeshaasay saaran tahay ninka la yidhaahdo gudoomiyaha Cabdullaahi Daacad ee markasta markaa u tagana annaga noo soo dariishada aayad quraan waxbana kama jiraan hadda waxaa leeyahay ninkaas asaga falkan asaga ka dambeeyay asaga iyo muxuu ahaa duqa magaalada Yarisow gobernatoraha gobolka ahna wuxuuna amar ku bixiyay dadkaas dhulka in looga kiciyo ninkaas asaga waxaan rabaa ninka la leeyahay inuu xuseen weyna sida uu degdeg badan in nagala qabto ninka la leeyahay daacad oo galkayna oo yaalo maalin walba galkiina waa culus yahay lama taaba kara ilma adeeryaal oo soo qaada la jooga intaas bil oo naga heestay oo walaalo isku keenay gudi aan ka weyn ee yiri maanta waa saxiixaya annaga waa ku haysanaa boobana ma kara dhulkayna 120 qoysaan ku degana dhulkayna iskale ninka ka gadanay sidaan hore idinkugu sheegay
cadaaladdu waa tiirka dowladnimo iyo horumarka bulshada. reer barwaaqase cadaaladdaas ayay uga baahan yihiin madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya.